أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي مهديسو هذا مركل هود كسو لابنay anigu wanaag isfaray Muhammad iska reebin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barin dhamaanteen ku intifaac Allah naga dhigo. waxaan soo socotay silsilo xalaqad aan kaga hadlaynay ad-tadayun al-maghshush ama fahamka qaldan oo dadka islaamka ama tabaqida islaamka oo qofku isku dabaqayo oo qish ka buuxa oo arkaysid qofka inuu markaas laga arkayo meel inuu kaga fiican yahay laakiin meelaha qaasatan awaamirta inay dadku fiican yihiin Ilaahay wuxuuna amray inuu qofka muslimka uu ku dadaalo oo salaadii la amr la yimaado oo soonkii la amr la yimaado oo zakadii uu bixiyo laakiin waxyaabihii oo nalaga reebay inuu fududeysto. walidaalika waxaana daran waxyaabaha muharramaadka ah qofka fududeysta dad aragtid waa qof diintiisa qish ku jira. maxaa yeelay qishkaasna waxay saameyn kartaaba awaamirta uu imaanayo. maxaa yeelay qofka salaadiisa ay wax ka qaldan yihiin oo aan qushuuceedii arkaanteedii aan taam yeelaynin waxaa laga yaabaa xumada inay ka reebin. ilaahi subxana wa taala ina salaata tanhaa can ilfaxshaa walmunkar markuu dhahayo kalaam xaqiiqa weeye. marka nin fuxshi ku jira oo salaadna tukanaya hadaad aragtid salaadiisa ayaa wax ka qaldan waxaa la leeyahay war salaada toosi salaadaada soo sugba. marka dadka marka sababtu maxay tahay? maxaa yeelay waxyaabaha ilaahay ka reebay ayuu iska fududeystaa. maxaa arkaysaa nin salaad tukada laakiin xantiisa badan tahay maantana carabkiisa ummadda ay ka nabadgelaynin oo maanta dhan qof kasta wax ka sheegayo. qof arkaysa salaada tukada laakiin haddana shahaad zuur ah dad qof uu garanaynin uu markaati furayo. qof aa la weydiinayaa waxaa leeyahay qofkaas ma taqaanaa weligiisna lama safrin ma yaqaan wixii idaacadaha uu ka maqla kaliya iyo dadka kale waxay ka sheegeen kaliya wuxuu u malay hadhow inay xujo u noqonayso markaasuu le hebel wax ka fiican ma laha. war shaahida taa markhaatiyaa tahay markhaatidaas ilaahi subxana wa tacaala biri oo ku idinayaa. waxaa laga yaaba qofkaas inuu salaad tukado oo soomo awaamirta uu la yimaado. walidaalika awaamirta markasta takfiifay leedahay oo qofka haddii uu aado fataqu llah ma statactum wataqu llah ma statactum wey. fataqu llah ma statactum macnaheed waxaa weeye intaad awoodid qofka istaag ku tuko waay fadhiguu ku tukanaya. laakiin nawaahida waxaa leeyahay idaa nahaytukum can shayin fajtanibuuhu faatuu minhu ma statactum idaa amartukum bishay faatuu bihi ma statactum waxaad awoodiin. xadiidka macnihiis saasuu ahaa. laakiin haddii wax nilaga reebo ayadina ka tag waa macnaheeda. saas daraaddeed xalaqaad badan aan ka soo hadalnay waan ka hadlayna tadayunka maqshuushka muslimiinta salaada tukanaysa soomaysa haddana wax ka qaldan yihiin khaasatan markay timaado mucaamalatu lkhayr. hadda laba dhinacaan u dhigo sida kale calaaqada iyo asaga rabbigiisa oo xaggaas awaamirta waa fiican tahay xataa awaamirta keliya soonka iyo salaadii ma ka tagto salaad kama tagto soon kama tago wuxuu malaya taas keliya inuu jannada ku tagayo taasoo ku kadsoomaya. laakiin haddana calaaqadii oo beynahu bayna alkhalqi bini aadamkii ka dhexaysay ilaahay ma ilaalinayo. jiiraankiisa xuquuqdiisa ma siinayo. waalid hadduu yahay wiilka aabihiis waalidiinta wiilka wax ma siinayo. wiilka aabbaha naftiisa caruurtiisa ma siinayo xuquuqdoodi. ninka xaaskiisa xuquuqdeeda ma siinayo. gabadhi ninkeeda xaaska waxay calaaqati ku tacalluqday makhluuqii asaga ay lahaayeen dhanba ilaahay wuxuu u maleeyaaba inuu xor u wuxuu raba ka samayn karo. maantana qabiil uu difaacaya in adeerkiisu u amaanaya maanta dhan waxaa weeye ninkaas waxaa laga yaaba salaad inuu soo tukado. walidaalika xalaqada waxaan niri fi'aadka dhan ayay gashaa oo soomaali haddaan nahan anaga dhibaata naga haysaa. hadda waxay noogu badan tahay siyaasadda noogu badan tahay dad badan oo tukanayo oo markii siyaas laga hadlayo waxaad leedahay kan muslim ma ahan ma asleedahay maxaa diinta ma yaqaan ma asleedahay. qof wuxuu u difaaca isagoo indhaha xiran qofkaas ma yaqaan kaas aan qaaninaan ka hadlayaa weli oo dadku waxay sheegayaan
samictaha dadka waxa sheegaan maqlay anna waa iska sheegay casrigan oo beenta badatay dad badan lacag la soo siinaa markaas 4 magac 20 magac soo qaadanaya qof uu amaanay adiga waxa u malaysaa marka iclaamka mudallil waa dadku dhuminaya marka kaas asoo ogeyn abal halaga maxaa dhacay qof uu aqaano hadhow wuxuu iska taageera uu markaa furaya mid kalena waa la halaagaya asal qabiil uu ku difaacaya kaas waa bacdahay wuxuu leeyahay aniga reerkayga ayaan difaacaya reerkaaga xaq dar hadaa ku difaacdid naarta la galaysaa walaa tacaawunu cala al-ithmi wal-cudwaan ninka walaalka hadaa xaaraan ku difaacdid adi asaga naarta hadaa jecesha asi naarta waa soo bixisiin almar ma man habba maxay nin dhaalima jeclaatay ilaahay nin dhaalimku agtaada dhiga xalaqadan ka soo sheekeynay oo dulmiga qofka inuu taageerin hataa haduu walaalkiisa mid kalena wuxuu business oo ka dhigtay wuxuu ku leeyahay lacag la soo tuura TV-gana fadhiya lacag qaata ninkaas iska amaana waa shaahid suur asagana lacag markaati beenaal ku qaata dadkaas sameynaya waxa cajiib marka masaajidka ku arkaysa waxa arkaysa ummad isla tukanayso masaajidka hadda Afrika markaa tagtid Kenya iyo hatta Soomaaliya Yurub taa markaa joogtid waxa arkaysa fadhi ku dirkay fadhiyaan ninka kale xamana qabiil hebel saas way hebel ninkaas tuug way waryaa ku markaati ka dhigta adig wuxuu yiri nabiga kaleey salaam waxa imaan doono yiri khayr qaruun markuu ka hadlayay wuxuu waxa imaan qoom oo wuxuu yiri yashhaduuna wala yustashhaduun ayago la dhihi markaati naqo ayuu markaati meel taagan yahay waxa la yaabaa ninkaas oo amaanayo wallahi duu wadada kaga hor yimaad ma yaqaan qabiil isla yihiin laga yaaba ama maalin iska saaxiib ay naqdeen ma yaqaan laga yaaba haddana maqaayadii waa laga fadhi laayahay ummadda meesha wanaag iska far lahayd maqaayad markaa fadhideed axkaana leedahay maqaayada iyo fadhi ku dirka meelaha la dhahayo nabigu calayhi salaam iyaakum wal julus fi turuqaat markuu yiri ha fariisan dadka wuxuu yiri ma lana budda in asxaabta xiri meesha ku nasana waa fariisana wuxuu idan aatu tariiqa xaqahu maqaayada fadhida xaq ay leedahay ma ka saysa xaqaas ila shan xaq ayuu tiriyay waxa kamid ahayd kaful ada war dadka haka nabad gala maqaayad inta fadhida dadka ka nabad gala siyaasi ka nabad gala madaxweyne madaxweynayaasha hore ka gala ka hadda joogo sheekh shariif maanta waxa sheegay ninkaas as dhahay ama dadkaas maqaayada fadhiyo salaada dilay aqam kullu masaajidka aadayaan kullu masaajidka aadayaan waraaw salaada aad tukanayso hadan maqribka waa soo noqonayaan ilaa maqribka casarka meesha ka bilaabay ka meesayaan qabiil isku haastaan adiga dulmi qof kale dulmiyo qof xataa la joogin aan aqaanin maxaa sameynaysa qiyaamada ku yira war ilaahay oo qiyaamaha ilaa banaanka la iskeenaya inuu yira ilaahay ninkan aniga maxaa ka galabsan saas uu dhigi jiray haduu ku dhamxa sameynay waa dadka ka qosli jiray masreerkay raali garay jirkees gees la dhaho waa codkar in la dhama dhays ma ku anfacayso ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka dulmiinta lagu soo saara marka waxa ku fiican marka inta meesha joogtid maqaayada calba wardi أما شك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر محير فليقل خيرا ولا يصمت شاهد عبد مقاعد كفري بس فكرت مقاعد إن أصلاً أهاتد وديكو كرو وBBC أدريس نيسد وهذا مساجد جليس إمام كبر كحوليه استوى على لا تختلفوا تختلف قلوبه قلوبتي ما بس 5 سنة حلو مركو حواي صلاة دعاء مرقا أقبلها أفريقيا وحلق شيء وحليري وعدي كبحه تكان كستو كين هذا أمرنا قلاء شكتي وحيل وعدي كسعوا محاضرات كي مساجد كي هذا نقبها لسك حدا ليري بس خبكر تامرك وعدي هذا الثمرة لهن وأنا مؤتمرات كيوروب قبل جرنو كلوا أنت السنة مؤتمر الوقبنا عدتك حدنا ولي وحواي ماشي وصاب بيكو قات عملوي برك حكمة ما قرآن إيش شدن تكانك إيش شدن حكمة إلهي الدنك ملها قرآن كأكو شدنا ولا جاب أجر كتسميع سناجد لكن دنبك وين أجر هالكان ما شاف إذا تتحمل يسا دي قفك الحقوق إلهي حقوق وقاضي يا قيامة ولذلك حقوق الغير وحاليا مبنية بالمشاحنة إلهي عادل وي ما لقي يابو قفا مالي وحكا شيكتي إنه إلهي كو عفي لقمي إلهي دا صلاتك تكتين كو عفي ولا يابا هذا صونك كت حقوق دي ساساق محضية إلهي كو عفي ولا يابا لكن إلهي حق حاسكا كشو معفيناي كإلمها قالوا معفيناي كم وحل لو معفيناي مالا حق إن لقاضي الله وقيامه لا ظلم اليوم هاي العدل لماذا أساسا إلهي عادل ما لقمي يابو
ajirkaaga iyo soonkaaga iyo salaadaada la qaatay haddiiba soon iyo salaad ay ku harto waay marka bilaahi calaykum war diintan qishka aan ka dhaafno diinta naftigeeda alqishin qishka asalka waxaa u naqaanaa ganacsi walidaalika xalaqada maanta waxaan ku talagalay muqadame intaas aad keliya laakiin xalaqada waxaan rabaa keliya inaan kusoo koobo waxaan ka hadlaynaa atijaaru almakhshuushiin ganacsatada aniga waan sheegay waxaan kasoo hadalnay qaybaan kasoo hadalnay dadka wax qisho oo fi'aadka waxaan ka hadlaynaa maanta ganacsigada ganacsada wey taajir wey intaasuu kala gidinaya haddana qishu ku wadaa meesha ninkaas ganacsada waxa laga yaaba salaadka ma tagto sanad kasta xajka inuu aada laga yaaba sanad kasta inuu cumrada aada laga yaaba laakiin dadka uma naxariisto wuxuu sameeyaa ganacsigiisa waa xoog wey wuxuu ku leeyahay aniga caanaha anaa keena ama wuxuu ku leeyahay sokorta anaa keena cid kale keeni karta mal xooguu ku haastaaba ay ganacsi hada ummadana ganacsiga waxa weeye dacu naasa nabigu wuxuu dadka dhaaf iska taajiraan haddii sokorta adiga keentay nin kale keenaya sokorta raqiisay naqanay ummadda ku naxariisayso laakiin haddaad tiraad aniga keliya iyo xiran tahay badeecadaas qabiil hebel ay u xiran tahay hadhowna sanad kasta masaajidka aad joogtid wallahi waxaan ku leeyahay salaadaada iyo xajka aad aadaysid khatare ku jirtaa ha ku katsoomin dadka dhaaf dadka kala ganacsadaan nabigu wuxuu diiday beecul xaadir ribaad ayuu mamnuucay dadka gedislayda oo suuqa dadka ka tagayo oo dadka lacagta saaranayo ama dadka kaydka gelinayo ayaan la xaram waxaasna uu sameeya baqaar u fulan waxba u dhacaya ganacsada wey nina wuxuu iga sheekayay qisada cajiiba wuxuu yidhi soomaaliya meel wuxuu leeyahay internet meel internetka ayaa u furan ayib wuxuu yidhi marka waxaan rabo asagna yurubtan uu ka tagay inaa ehelkayga internetka wax kala xiriiro lacagtayaan dhiibo yidhi lambarkaas fariisaa la yidhi lambarka markaa fariisanayay wuxuu yidhi waa haleesnaa waa ii shaqi waa furin waay computerka waa soo baxay ninkii u imid lacagta iga qaad waxaan idhi lambarka waa ii furmi laayahay asagoo rabo inuu ii furo ayaa adinka maqribka dhaco yidhi ila soomaali waa adima masaajidada dadkan inuu kiciyo yidhi wuxuu yidhi hay aniga dad muslimiin aan nahay wuxuu yidhi ma furnaanays maxalkaa ma furnaanaya iyadoo aadaanka markii lasoo tukada laisku soo naqanaya masaajidka lasoo aado waa la xiraa dadka dhan xataa kuwa ku jireen oo internetka kulli waa la kiciyo yidhi anigana wuxuu yidhi salaada igu jirta laftigeeda waa soo baxay markaasaa maxaa iri markaa baxaya marka waxaan ku iri yidhi war nabi aniga hadda maqrib haddaa sii tukado xaafad dheer oo sii hooyanayo inta kusoo naqan lacagteeda sii wuxuu yidhi lacagta waa kaa dhimatay maxaa dhacay wuxuu yidhi marba haddaad aad fariisatay kumalo computerka xataa hadduu kuu furmi lacagta waa kaa dhimatay billahi caleyk se isku qabataa ninkaa soomaaliya ganacsiyaasheeda intaasaa ka buuxda wuxuu ku leeyahay maxalkiisa dhan ama dukaankiisa dhan wuxuu u xirayaa in salaada ilaahay la ogo wax fiican wey laakiin ninkan lacagtiisa xaaraan ku dhacuhaa wuxuu yidhi lacagta waa kaa dhimatay war ninaa internetkaaga isticmaalin lacagtiisa maxaa u qaadanay maa tiraa ho lacagta haddaa meel kale ka gelis ka gal walidaalika ganacsatada anaga waxaa nagu jiro qish badanaa nagu jiro waxaa weeye ninkas wax kan daawada ka ganacsa daawo dhacdo keenaya kan cunada bariiska dhaco dadka keenaya manina tv maalin laga soo wuxuu yidhi bariida dhaca dadka ka gaday ganacsada wey ganacsada qishu ku jira salaada waa tukanaya soonka waa tukanaya markay hay-adaha mucaawanaad keenaan tuugada kuwa hay-adaha u shaqeeyo oo lacagta ka gadanayo oo gadanayo xoolihii masaakiinta suuqa keenayo nin ganacsata meel u joogo wuxuu anaa kaa gadanaya baqaarkayga soo dhigo dhahaa ninkaas baqaarka ku kaalmeeyey oo tacaawuna cala ismi dembiga ku kaalmeeyey ninkan hay-adda u shaqeeyo oo qalinka wato oo iska dhigayo nin masaakiinta kaalmeynayo oo markuu halkaa ninka ku kaalmeeyey ganacsada wey ganacsadaas waxaa laga yaabaa salaad waa xiraa baqaarka markuu aadayo waxaasoo dhan ayaa nagu jira marka war diinta qishka aan ka wax haddaan qalday nafteyda iyo shaydaanay ka ahaatay haddaan saxan tawfiiq ilaahay subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu